Sultan Maxamed Jaamac Ciise Leen oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland isla markaana kamid ah madax dhaqameedkii ka qayb qaatay daminta colaadii ka dhacday deegaanada Ceelaf Weyn oo waraysi khaas ah dhinacyo badan taabanaya telefishinka caalamiga Home Cable TV ku siiyay magaalada Ceergaabo ayaa waxa sultaanku ka waramay socdaal ugu kurgalayo xaaladda nabadgelyo ee gobolka iyo midda nololeed ee dad iyo dunyo ku soo maray degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag gaar ahaan degmooyinka Garaadag iyo Ceelaf Weyn waxaana sidoo kale uu sultaanku ka hadlay doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka dhacay dalka iyo waliba doorashada madaxtooyada ugu soo foole isagoo dhinaca kalena soo hadal qaaday dadkii dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay ka saartay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood markan socdaalkay kaaga waramo anagu waxaan ka soo baxay gobolka Togdheer Burco waxaan soo maray wadada dheer isku xidha Ceergaabo ilaa iyo magaranaysa meesha la yaaho Burco deegaanada inta ugu badan waa rooban yihiin adigu meel googo'an oo roob ka yar googo'an way jirtaa laakiin intiisa badan ugu badnaato aagas gobolka aaga Ceergaabo ugu roob badnaatee aad bay u rooban tahay dadkuna way iska wacan yahay caafimaadka iyo dadka iyo magaranaysa magaalooyinkan soo maray sida Garaadag iyo Ceelaf Weyn iyo way iska wacan yihiin adigu waxa laga yar cabanaya xanuunkii oo ku jira gobolka aad looga cabanayo isagana aad baa wasaaradda caafimaadku wacyigelinteeda iyo howlahaas ay uga socdeen iyo maayirada iyo mas'uuliyiinta gobolku sida kale aad iyo aad baa gobolku wacan yahay nabadgelyadiisu 100% bay maraysaa maanta dib waxa ka muuqda nabadgelyo deegaanadan soo maray sidii Ceelaf Weyn oo shaqo badan dhowr jeer ku soo noqnoqotay dadku isku dhexgalkiisa iyo horumarka iyo dhismayaasha iyo magaranaysa howluhu aad bay uga socdaan nabadgelyaduna si fiican bay uga muuqatay aad iyo aadna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu soo siyaadiyo shaqooyinkii aan Ilaahay ku soo celin dadka deegaanka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelaf Weyn waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan inaanay mar dambe ka soo bixin Ilaahay kuma qaylo dambe aanay ka soo bixin oo Ilaahay nabadgelyada u taabageliyo adigu intaa inahaasaan soo maray aad iyo aadna way u fiicnayd waan xalay iyadaan joogo u hooyanay magaalada Ceelaf Weyn saakaanu ka soo baxnay aad iyo aad buu wanaagsantahay wallahi degmadaasi Ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu siyaadiyo nabadgelyada dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay labada gacmood isugu geeyaan cid kastoo khalkhal gelinaysa ay meel uga soo wada jeestaan aad iyo aad baan arrinta ugu boorinaynaa kulli sultan waxaad ahayd madax dhaqameedkii ka qayb qaatay nabadgelyada deegaanada galbeedka gaar ahaan deegaanada Ceelaf Weyn arrinta bal nabadgelyada ka waran dadkii halkay maraysaa wallahi aad iyo aad bay nabadgelyadu wacan tahay tacab badan baa la geliyay culimo iyo dawlad iyo asxaab qaran iyo oday dhaqameed cid kastoo gelisay ama waraysa ka shaqeysay nabadgelyada Ilaahay jazaa ka siiyo jazakallahu jazaa khayr maanta meel wacan bay maraysaa dadku isku dhexgalkiisa iyo adeegiisa iyo walaaltinimadiisa way soo noqonaysaa iyo kalsoonidii waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu si siyaadiyo iyana ay ku afaraadayaan nabadgelyada maanta haystaan maanta magaaladu way rooban tahay oo soo maray biyaha iyo xareedda jiifa dadku waa dhex maraya oo shaqaysanaya adeegyadii waxbarashada iyo caafimaadku way shaqaynayaan xildhibaano cusub oo aad iyo aad u karti badan maanta oo dhalinyaro u badan maanta way doorteen oo way shaqaynayeen marka waxaan sidoo kale sultaanku uu ka waramay aragtidiisa ku aadan dadkii ay xukuumadda dhawaan ay ka saartay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxaana sultaanku uu sicay aafo mudankii gobolka Sool ama magaalada Laascaanood 18 nin oo magayna ah oo magaranaysa nin karmoodkii baa lagu dilay xal waxay noqotay dawladdu markii ugu horeysay inay magaranaysa inay arinta ay digniin dadkaasi siisay bay ahayd ka bacdina ay magaranaysa waqti u qabato nabadgelyaduna waxa weeyaan waa lama taabtaan dadka gobolka ku dhaqana in badan bay ka cawdeen dawladdu aad bay uga koorgashay way rogrogtay baashi waxay ka dhaqaaq weyday ama dadka deegaanka iyo gobolkuba ay magaranaysa isla qaateen in dadkaas ka yimi Soomaaliya iyadoo ay yihiin dad walaalaheena iyadoo ay yihiin dad aynu dirisnahay haddana waxay noqotay nabadgelyadu wax halbowla ah waan cidna lagu baashiri karin ama se magaranaysa lagu maslixi karin marka tallaabada ay dawladdu qaaday iyadoo degdeg ku jiray oo arrintaas ay degdeg ahayd haddana in la hubiyo oo la gubo cudur noolba nabadgelyada laga gubo
waa waajib saaran dowladda iyadaana uga mas'uula dalkan iyo dadkan tallaabada ay qaaday ee ay kaga saartay dadkaana oon degdeg un baa ku weeri jiray laakiin waxaan ku taageersanay haddaan nahay madaxda Somaliland ama aan ku hadlayo afkayga waxaan ku taageersanay nabadgelyada wax kasto lagu sugayo iyo tallaabo kasto iyo loo marayo inay dawladdu aan anaguna u sidoo kale ka waramay doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka dhacay dalka iyo waliba doorashada madaxtooyada ee ugu soo fool waxa shaqooyinka Jamhuuriyadda Somaliland sanadka ka dhacay aad iyo aad bay sumcad ballaaran ugu soo jiideen ama kuwa soo socda haataan aad iyo aadna waxaan ugu hambaleynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta si la yaab leh u qabtay doorashooyinkii isku sidkanaa iyadoo aanu faragelin kuwii laga helay xisbiga xaakimka laga helay codka aqlabiyadda golihiisa xisbigiisa iyo kiishir gudoonkaba labadaba sidiisii isagoo aan farafarayn u qaatay uguna qancay waxaan ugu rajaynay waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu doorashooyinka soo socdana si ka sii fiican waqtigoodiina ku qabto xilligii natiijooyinka ka soo baxana xisbi waliba uu ku qanacsanaado oo sidii maalintii dhawada kala dhacday wallahi golayaasha wakiilada maanta ee cusub aad iyo aad baan horta marka hore ugu hambalyeynaa waxa weeyaan ilaahay xilka ku asturo shaqadii loo igmaday iyo deegaanadii laga soo doortay laba hawlood baa sugaya hawsha ay maanta qaranku hayaan Jamhuuriyadda Somaliland oo ay wakiil kaga yihiin baarlamaankii ugu sareeyay ee sharci dejinada yihiin midna waa midkii deegaanadii laga soo doortay oo mid loo baahiyihiisa iyo duruufo badan ay ku xiran yihiin haday tahay shaqalaan haday tahay mashaariicda waliba qaybaha bariga gaar ahaan waxaan aad ula sii dardaarmayaa xildhibaanada ka soo jeega bariga Somaliland inay deegaanadii laga soo doortay iyo dadkii shicibka ahaa ee inta badan u taagnaa bacadka ee maanta ay yihiin xildhibaanada inaan ilaawina ay ku soo celiyaan wixii dadku doortay haday duruufaha haday mashaariic tahay haday biilaanta haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay waa la ogyahay inay maanta gobolada barigu aad uga dambeeyaan gobolada galbeedka wayna shaqeynayaan waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa darajooyinkii ay u magacaabeen saddexda degmo ee Balligubadle Caynaba iyo Taleex halka inay ka sii wadaan waxqabadka goboladooda iyo degmooyinkii laga doortay hawsha qarankana ay si hufan u gubtaan iyaguna isku xidhnaadaan oo midoobaan oo ay noqdaan baarlamaan qarankan oo dhan matala ugu dambeyntii Sultaan Maxamed Jaamac Ciise Layn uu hambaliyay iyo bogaadeen iyo soo dhaweyn u soo jeediyay barasaabka cusub ee gobolka Sanaag Maxamed Cilmi Xuseen iyo maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur uu ku amaanay waxqabadka mugale uu ka geystay degmada Ceergaabo maanta nasiib bay weelatay gobolka Sanaag iyo degmada Ceergaabo inay noqdaan laba nin oo mas'uul ka soo jeeda gobolka Sanaag barasaabkii iyo maayirkii degmada Ceergaabo oo labaduba ay yihiin laba nin oo waaya arag oo soo shaqeeyay reer Ceergaabo in badan bay waxay ka qeelinayaan ama gobolka Sanaag guud ahaan waxaana loo soo bedelay niman gobolka u dhalan maanta iyaga looga baahan yahay inay gobolka horumariyaan gobolka barwaaqaysan ay dihin nooc walba haday tahay beeri haday tahay xabagtii haday tahay badii inta way isku xidhan yihiin inay maanta iibgeeyaan Soomaalida waxay ku maamulada gel anaga hayna cid ku faantay weydii gobolka Sanaag dadkiisu ma horumarin kara qurba joogta gobolka Sanaag iyo ganacsatada ka soo jeeda gobolka Sanaagna waxaan ugu baaqayaa inay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada ay la shaqeeyaan inay nabadgelyada ilaashadaan inay beeraha qotaan inay beeyada iyo xabkaha ka shaqeeyaan inay dakhli ku fulan way haystaan ay soo bandhigaan si gobolada kale ee Jamhuuriyadda Somaliland ay la horumariyaan ay la jaan qaadaan saasaan ugu baaqayaa dadweynaha ku nool Ali Adal Tahir wararka telefishinka caalamiga Home Cable TV ee gobolka Sanaag